بسم الله الرحمن الرحيم. عاصمة مقالة هرقيسي ومرايدة جمهورية السوماليلان وراء عاصمة لقد دهان كرو قروحدا iyo bilicda markii dunidu inoo soo booqatay cid waliba caasimada Hargeysa runtii waxa ka muuqda dayac weyn markaad eegto jidadkeeda burbursan iyo markaad eegto xashiishka dhex yaala iyo gaabiska golaha deegaanka ee caasimada maayirku hogaaminayo Sootalku sida aanay xil isaga saarin ee aanay uga shaqeynin caasimada Hargeysa muddada uu joogay maayirka magaalada Hargeysa waa muddadii caasimadu ay ugu foolxumada badnayd ee ugu qashinka badnayd golaha deegaanka ee caasimada waxaanu dooranay ee cashuurta shacabka ay ku shaqeeyaan ay tahay inay ku qabtaan nadaafadda jidadka iyo wax waloo ay tahay shaqadooduba taa kama shaqeeyaan oo caasimada wax laga qabtay iska daayay dawladda hoose cashuurta inaga qaado fayadhoor kama samayso cashuurta lacagta la inaga qaado in xashiishka lagu guraa joogtay waxa xashiishka inaga guraa shirkado business degmo walba shirkad baa ka gurta ganacsiga oo ay dicdi gaar u leedahay muddada uu Sootalka joogay iyo golaha deegaanku waa muddada caasimada guryaha laga dhisay inta ugu badan ay wadada hore u galeen mitir iyo laba musuqa ugu weyn marka laga tago cashuurta ay musuqaan golaha deegaanka iyo maayirku waxa ka weyn lafjabna inugu ah mustaqbalka fogna ah mid aan runtii inugu noqon doonta bilic xumo iyo dhaawac fooqyada magaalada soo gala businessyadu soo galiyeen extensionka lagu sameeyay wala lacagta ugu badan halka golaha deegaanka keena iyo maayirku waxay isugu faanaan golaheena deegaanka caasimada metelay muddadaas inta guriye ay leeyihiin inta baabuur raaxa ay leeyihiin iyo inta balood ay iyagu gaar u saastaan waxa go'aan oo maantada ay joogno go'aan briishkii wadada Saylada oo saxmad weyn ku haya degmada Maxamuud Haybe waxa degmada 66 Juun suuqa waahaan suuqa gobonimo waxa soo galay oo ay golaha deegaanku iyagu ka qaateen lacagtu ku soo galay businesska kaalinta indhabirta nationalka la yiraahdo waxa wadada soo gashay 5 mitir in ka badan waliba wadada waxa laga dhex sameeyay gidaar halkaan caqabad weyn baa ka haysata gawaadhidii iyo basaskii iyo gaadiidkii dhex maray jidka halbowlaha ee baarlamaanka hormara waxaad ku maraysaa yaqyaqsiisa inta ka qabinta meeshaas sida u go'an tahay iyo caasimada golaha deegaanka muraayada magaalada aanay waxba ka qabanaynin waxaad ku maraysaa gaariga adigoo wax weyn bisinka haysta jidad cusub ay dhisaan joogaan kuwii jiray baa dayacan oo baabaysan iyadoo haddaba intaas soo dhamay ay taagan tahay oo caasimada dhibtaas soo dhamay ka taagan tahay bilaa xumadaas soo dhamay ka taagan tahayna wuxuu maayirkii ku daray cashuurteennii markii uu madaxweynuhu ka soo noqday gobolada bariga laba habeen baa caasimada la xaaray shacabka kama xishoonayo ilaahay kama xishoonayo cashuur bixiyaasha kama xishoonayo waa guulwadayn wuxuu u guulwadaynayaa maalinta subaxa 5 mirir ee uu madaxweynuhu dhex marayay magaalada waana foolxumiye ciib weyn guulwadayntii xitaa siyaad barre way ka darantay madaxweynaha laftigiisa yahay in maayirka maalinta ugu caasimada xaarayay inuu kula ummadda u shaqeeyo oo ummadda uu ka qabto laakiin taa bedelkeeda waxay ognay muddadii doorashada iyo tartankii aynu soo dhaafnay 2017 dimaayarku cashuurtii madaxweynaha ugu oloolanayay teeniba haydo waa abaalgud inuu la hadli waayo madaxweynuhu maanta wuxuu ugu abaalgudayaa waa cashuurteennii ugu ololay shacabka cashuur baa laga qaadaa ummaddu waxay u baahan tahay inay si dhab ugu baraarugto accountability timaado oo xisaabtamo wadooyinka la dhisay lagu xisaabtamo in yaroo wadooyinka la dhisi jiro ay ummaddu 40% ay ku darsan jireen oo intiina waxa loo joojiyay de waxa weeye ummaddu shacabka cashuur baa laga qaadaa iyaga xaq loogu leeyahay wadada ma dhisaayaan golaha deegaanka iyo Sootalka ilaa ay 40% bixiso caasimadu waa muraayad fooqyada iyo guryaha iyo fiilooyinka wadooyinka soo galay extension-koogii 44 mitir oo Sootalka isagu lacagaystayna waa dhaxal iyo dhabarjab in hor yaalo oo jiri doona inta ay umantahay Hargeysa waxa shacabku u soo jeedinayna golaha deegaanku uu fashil iyo foolxumana lama eegan karo waa ceeb weeya wuxuu ugu xumarayaa yaqyaqsi
dacashuurteena caruur lagu korsan maayo gawaadhi laga iibsan maayo baloodhana laga samaysan maayo waxaan u baahanahay inaynu sanaba ula xisaabtano in isugu nimaado xisbiguna arrinka diiraddu saarayay kulana waaweyn baa ka dhacaya aakhirka waxa iman doontaa mudaharaado iyo golaha deegaanka iyagoo sharaf lahayn oo shaarka jiiray inuu shacabku dibadda u soo saaro madaxweynaha waxaan u soo jeedinaynaa ummaddu abaal bay kuugu hayn doontaa oo taariikhday kuu geli doontaa golayaasha fashilmay ila dastuurka xaq u siiyay inaad kala dirto oo aad ummadda intaa uga dhigta uu wax qabad iyo dhaxal waliba sanadka uu madaxweynuhu joogay marka November ay ku dhamaanayso wax qabadka ugu weyn uu sameyn karo waxaan u arkaa golayaasha deegaanka inuu ummadda uga heeliyo shacabkana waxaan u soo jeedinaynaa cashuurta inay ku bixiyaan xisaab maxaa lay qabtay maxaa laygu qabanaya maxay iga soo noqonay saas ay noo balan aad noo mahadsantiin